kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah xog lama filaan ah oo laga helay isbedel weyn oo lagu sameeyay heshiiskii doorashada ee madaxda golaha wada tashiga qaran. Haddaba maxaa ka jira in Ra'iisul Wasaare Roble ogolaaday in hal magaalo lagu soo koobo doorashada aqalka hoose? Xogta isbedelkan oo laba arrimood ku imaanaya ayaan idiin soo gudbin doonaa. Ra'iisul Wasaare Roble oo kulamadii ugu badnaa ka wada magaalada Nairobi, natiijada kulamo uu la qaatay Ra'iisul Wasaare hore Umar Cabdirashiid iyo muwaadin Soomaaliyeed qalbi dhagax xilli uu Mr. Roble weerar siyaasadeed ku qaaday Xasan Cali Kheyre. Xukuumadda Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay dhaqaalaha ku baxaya doorashada xilli Ra'iisul Wasaare Roble dalab culus u gudbiyay beesha caalamka. Wararkan kalena waxaa kamid ah qaramada midoobay oo shaaca ka qaaday inay taageeradii ugu weyneyd siin doonto xukuumadda Soomaaliya inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka, iyo James Swan oo ammaan kala dul dhacay Roble kadib khudbadii uu ka jeediyay golaha ammaanka, iyo dagaalka Xaaf iyo Cabdi Qaybdiid oo dhinac u dhacay xilli Xaaf uu qarka u saaran yahay inuu tanaasulo kadib cadaadisyo uu la kulmay. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah, waana Jimco 13 bisha 8 Agoosto sanadka 2022. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. Haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan. fadlan nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadeena idinka oo ku share gareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. Jimco wanaagsan ayaan daawadayaal idin leenahay meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan. Halkani waa shabakada Warqad TV oo idin soo gudbisa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. meel kasta oo joogtaan, Jimco wacan oo cudoon ayaan hawada idinka leenahay haddii aynu nahay bahda Warqad TV. iminkana aynu ku bilowno wararkeena. waxaanu ku hormareynaa wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha doorashooyinka iyo isbedelada la filayo inay dhacaan. xogo aynu helnay ayaa waxa ay sheegayaan in isbedel weyn lagu sameyn doono heshiiska doorashada kadib markay Muqdisho isugu yimaadaan madaxda golaha wada tashiga qaran isbuuca foodeyn ugu soo haya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada, iyada oo aan idiin soo gudbinay isla markaana wararkeennii hore aad ku daawateen in shirkaasi uu noqon doono mid xasaasi ah oo mar kale looga dohdo arrimo ku saabsan doorashooyinka, gaar ahaan doorashada aqalka hoose. heshiiskii 27 May lagu gaaray magaalada Muqdisho isla markaana ay gaareen madaxda golaha wada tashiga qaran ayaa dhigayay in markaasi aqalka hoose doorashadiisa ay ka dhacdo 2 magaalo, isla markaana ergada ay iyadu noqoto 101 ergo. arrintaasi walaac badan ayaa ka jira iyadoo dhowr jeer la soo sheegay in isbedelo lagu sameynayo tirada ergada iyo magaalooyinka halka doorashada ay ka dhacayaan. xogo xilkas ah oo aynu ka helnay xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble iyo xafiisyada kale ee dowlad goboleedyada ayaa sheegaya in kulankan ay isugu imaan doonaan isbuuca soo socda. madaxda golaha wada tashiga qaran ay ku go'aamin doonaan inay isbedel ku sameeyaan halka ay ka dhacayso doorashooyinka, isla markaana lagu soo koobo doorashada hal magaalo. wararku waxay intaasi ku darayaan inay jiraan caqabado ku horgudban in doorashada aqalka hoose ay ka dhacdo 2 magaalo, isla markaana ergada ay tirada saas uga badnaato. arrimaha la xusi karo waxaa kamid ah in dhaqaalaha ku baxaya ergada iyo waliba sidoo kale labada magaalo ay markaasi tahay mid aad u fara badan oo xad dhaaf ah, sidoo kalena meelaha qaar aysanba ka dhici karin doorashooyin. arrimaha Warqad TV oo ogaaday in isbedelkan uu markaasi ku dhawoobi karo ayaa waxa ay kala yihiin in arrinta gobolka Gado aan weli xal rasmi laga gaarin. sababtu waxay tahay in Axmed Madoobe uu weli soo magacaabin gudoomiyaha degmada Garbaharey ee gobolka Gado. arrintaas oo iyaduna shaki badan ku abuuraysa in doorashadu ay ka dhici karto 2 magaalo. sidoo kale waxaa jira walwal badan oo laga qabo in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya doorashadiisa ay ka dhacdo magaalada Baraawo sabab la xiriira dhinaca ammaanka oo halkaasi laga soo waramayo in doorashadu aysan ka dhici karin. sidoo kale caqabad weyn ayaa ka jirta maamulka Hirshabelle gaar ahaan dadka dega gobolka Hiiraan oo iyaguna aan halkaasi loogu tagi karin, isla markaana aan ban aqoonsanayn maamulku hogaamiye Cali Guudlaawe. labada arrimood ee ugu weyn ayaa waxay tahay in doorashadaas labada magaalo ka dhacaysa ay lacag fara badan ku baxayso, iyo waliba sidoo kale in magaalooyinka qaar aysan doorasho ka qabsoomi karin sida Baraawe iyo gobolka Gado, si lamid ah gobolka Hirshabelle la isku yiraahdo. arrimahan ayaa waxay noqon doonaan kuwa keena in isbedel lagu sameeyo heshiiskii doorashada 27 May marka Muqdisho ay isugu yimaadaan madaxda golaha wada tashiga qaran iyagu markaasi ku midaysan. wararka ku soo kordhana wararkeena kale ayaan ku soo gudbin doonaa insha Allah markaana qaybaha kale ee wararkeena.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake kaasoo isku xog wareysteen xaaladda dalka iyo doorashooyinka. sidoo kale Roble ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula kulmay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa jabhadda ONLF ee ka dagaalami jirtay ee deegaanka Soomaalida Ethiopia. Qalbi Dhagax ayaa sanadkii 2017 dowladda Soomaaliya waxa ay ka qabatay magaalada Muqdisho iyadoo gacan gelisay dowladda Ethiopia, waxaana la sii daayay markii uu xukunka la wareegay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyada oo gacan gelintiisa ay ka dhalatay caro xoogan. dhinaca kale 12 bilood kadib maanta ayuu markaasi ra-iisul wasaare Roble booqday maqaayadii uu fariisan jiray inta aan loo soo magacaabin ra-iisul wasaaraha dalka isagoo ah qof shacab ah oo kamid ah dadka xaafadaasi degan. ra-iisul wasaare Roble ayaa waxa uu ku sugan yahay iminka magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya isagoo halkaasi ka wada kulamo kala duwan oo aad u fara badan. isla wararka ra-iisul wasaaraha ayaynu ku guda jirnay. xukuumadda Soomaaliya waxa ay war cusub ka soo saartay dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlayay magaalada Nairobi dalka Kenya ayaa sheegay in dhaqaalaha loo qoondeeyo doorashada ay gaarayso 26 milyan oo dollar oo aan weli soo xaroon. dhaqaalahaasi ayaa laga hayaa 7.2 milyan oo dollar oo ay dhawaan kala siixdeen xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyadoo ay weli maqan tahay lacagta ay xukuumaddu markaasi u qoondeysay inay ku darto doorashada. lacagaha doorashada qayb kamid ah waxaa laga sugayaa murashaxiinta u tartamaya xilalka labada aqal ee baarlamaanka oo aqalka sare laga qaadayo 20,000 oo dollar halka golaha shacabka laga qaadayo 10,000 oo dollar. miisaaniyadda dhaqaalaha ku baxaya doorashada ayaa lagu ansixin doonaa shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu wado in toddobaadka soo socda uu ka dhaco magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. ra-iisul wasaare Roble waxa uu sheegay in doorashada ay markaasi ka duwan tahay doorashadii hore, ergaduna ay tahay laba laab, laakiin lacagta inteeda badan aysan soo xaroon, ayna arrintaasi uga hadli doonaan shirka wadatashiga qaran ee Muqdisho ka dhacaya toddobaadkan ee markaasi foodeen ugu soo haya. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan Warqad TV ayaad naga daawanaysaan imika. ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa warbixin ka siiyay golaha ammaanka xaaladda Soomaaliya kadib fadhi gaar ah oo ay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya. Mr. James Swan ayaa sheegay in horumar laga sameeyay siyaasadda Soomaaliya tan iyo markii ugu dambeysay ee uu golahan la hadlo oo ahayd maalmo ka hor 27kii bishii May, xilligaas oo ay ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada federaalka ah ay kala saxiixdeen heshiiskii hirgelinta doorashada. ra-iisul wasaare Roble ayuu sheegay in uu muujiyay kaalin hogaamiyanimo isaga oo kulamo wada tashi oo joogta la lahaa madaxda maamul goboleedyada si loo hirgeliyo heshiiskii doorashada. waxa uu ku amaanay arrintaasi ra-iisul wasaaraha. waxa uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in doorashada kuraasta aqalka sare ay ka bilaabatay maamul goboleedyada. Swan ayaa intaasi ku daray in inkastoo guulo la taaban karo la gaaray, haddana loo baahan yahay in markaasi la xoojiyo ammaanka doorashada oo uu sheegay in si gaar ah uga walwalsan yahay. waxa uu sheegay in sidoo kale loo baahan yahay in la xaqiijiyo qoondada kuraasta ee dumarka, dhalinyarada iyo dadka la takooro oo laga qayb geliyo siyaasadda. Swan ayaa booriyay in caqabada mustaqbalka ee ka hor imaan kara ee doorashadan loo baahan yahay in lagu xalliyo si xasiloon iyo wada hadal ku dhisan ismaqal. Al-Shabaab ayaa weli halis ku ammaanka Soomaaliya, isla markaana ay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM waxa uu diiwaan geliyay sanadkan 2021 708 qof oo rayid ah oo rabshadaha Soomaaliya iyada oo 320 kamid ah ay dhinteen, 387 kalena la dhaawacay ayaa kamid ahaa warbixinta ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya uu ka jeediyay golaha. waxa hadalkiisa kusoo gunaanaday Swan in qaramada midoobay ay diyaar u tahay si wadista taageerada ay u fidiso Soomaaliya gaar ahaan howlaha doorashada, si buu yiri wadanku uu xoog u saaro dhinaca nabadgelyada iyo markaasi ahdaaftiisa horumarineedna markaasi uu sare ugu qaado. ugu dambeyntiina dagaalka Xaaf iyo Cabdi Qaybdiid ayaa lagu wadaa inuu markaasi dhinac u dhaco. dagaalkan ayaa waxa u dhaxeeya siyaasiyiinta waaweyn ee Cabdi Qaybdiid oo isagu 4 sano kusoo fadhiyay kursiga senatarnimo ee beeshaas iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo isaguna kursigan raadinaya. madaxweynaha Galmudug Qoorqoor ayaana dib u dhigay kursigan in uu soo gudbiyo magacaabistiisa. xogo la helay ayaa waxay sheegayaan
in imika ay soconayaan wadahadallo u dhexeeya madaxweynaha galmudug iyo axmed ducaali geelle xaaf, waxayna wararka hoose sheegayaan inay suurtagal tahay in xaaf lagu qanciyo in uu isaga haro tartanka kursigan. madaxweynaha galmudug qoorqoor ayaa xaaf usoo bandhigay in la siiyo mashruuca soo dejinta qaadka ee garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho, sidoo kalena la siiyo lacag si uu isaga haro tartanka kursiga, islamarkaana loo siiyo cabdi qaybdiid oo isagu markaasi ah siyaasi si weyn ay isugu dhow yihiin qoorqoor. wararka kale la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynihii hore galmudug geelle isagu markaasi dalbaday in la siiyo lacag ilaa 2 milyan oo dollar ah si uu isaga haro tartankan, balse waxaa arrintaasi ku gacan saaray qoorqoor oo uu sheegay inuusan hadda awoodin in lacagahaasi uu bixiyo. haddii xaaf uu aqbalo inuu isaga haro tartankan, waxaa si fudud halkaasi isaga soo bixi karaa senator cabdi qaybdiid oo isagu kursigan 4 sano ee hore lasoo fadhiyey. galmudug ayaa waxaa ka bilaabatay doorashada aqalka sare iyadoo ilaa 6 kursina la doortay, 2 kursi oo xaaf iyo cabdi qaybdiid mid kamid ah isku haystaan iyo kursi kale ayaa dhiman iyadoo oo la filayo in kuraastaasi kalena la soo gudbiyo. guud ahaan barnaamijkeennii wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya maanta oo Jimcaha intaas ayuu ku dhan yahay. intaan mar kale barnaamijkan mid lamid ah dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.